maanta waxaan joognaa meel ciidankeenu ayaguna ay kalsooni isu qabaan annaga madaxdaana aan kalsooni ku qabno. muxuu yahay shirka maanta ka furmaya magaalada Kampala ee caasimadda Uganda? maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AUSOM ay ka bixi doonaan gudaha Soomaaliya? ma tahay xilligii ciidamada xoogga dalka lagu markaasi aamini lahaa ammaanka dalka? warbixintan waxaan ku eegi doonaa xaaladda ku gadaaman ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada howlgalka midowga Afrika AUSOM oo markaasi warar kala duwan ay ka soo baxayaan inay ku sii sugnaanayaan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale inay isaga baxayaan gudaha dalka, iyadoo magaalada Kampala maanta oo Jimcaha uu ka furmayo shir u dhaxeeya shir madaxeedka Afrika ee looga hadlayo ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AUSOM. halkaasi waxa ku sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxa uu markaasi uu maalinimadii shalay ama gelinkii dambe ee shalay uu gaaray magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda. maanta halkaasi waxaa looga wada hadlayaa ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AUSOM, iyadoo dhowaan mucaaradku dalka ay sheegeen in markaasi Al-Shabaab oo qabsan doono dalka haddii ciidamada midowga Afrika ee howlgalka AUSOM ay markaasi ka baxaan gudaha Soomaaliya. warbixintan ama muuqaalkan xogaasi ayaan kugu wadaagi doonaa. soo dhowow adiguna oo muuqaalka ka qayb qaado si uu gaara saaxiibo fara badan. aad baad u mahadsantahay. soo dhawaada. marka hore waa maalinimo Jimcaha taariikhdu ku aasaysan tahay 31 bisha 7 ee Julaay sanada 2026. magaalada Uganda ee caasimadda dalka waa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda maanta waxaa ka furmaya shir u dhaxeeyo taliyaasha ciidamada midowga Afrika ama markaasi dalalka ciidamada AUSOM ka howlgala ama magaca midowga Afrika ee markaasi ku sugan gudaha Soomaaliya. halkaasi waxa ku sugan madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalinimadii shalay ama gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Uganda waa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Uganda waxay martigelinaysaa shir madaxeedka midowga Afrika ee ciidamada AUSOM. waxaa looga wada hadlayaa xaaladda ciidamadan ay ku sugan yihiin, iyadoo Mareykanku oo maalinimadii shalay wafdi ka socda oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kula kulmay magaalada caasimadda ee Muqdisho. kulankaasi taliyaha ciidamada Afrika ee AFRICOM ee Mareykanka ayaa markaasi urkacayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxay kala hadleen arrimo ku aadan ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AUSOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya, iyadoo mucaaradku dalka dhowaan shir jaraa'id ku qabteen magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku sheegeen in markaasi haatan wixii ka dambeeyay haddii ciidamada waa markaasi midowga Afrika ay ka baxaan AUSOM ay ka baxaan gudaha dalka in markaasi xaaladda dalka ay markaasi galayso meel halis ah, iyagoo sheegay in qaybo badan oo dalka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay qabsan doonaan. madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed oo hadlayay waxa uu tilmaamay in markaasi ciidamadan aan laga maarmin ay yihiin ciidamo markaasi si weyn uga dagaalama gudaha dalka. waxa uu tilmaamay in meelo badan oo dalka ay markaasi kooxda Al-Shabaab ay qabsan doonto haddii ciidamada AUSOM ee howlgalka midowga Afrika ay isaga baxaan gudaha dalka. maanta waxaa la filayaa gelinka dambe ee maanta in markaasi magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda uu ka furmo shir madaxeedka midowga Afrika ee ciidamada AUSOM looga hadlayo. halkaasi waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Ibrahim Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe ee markaasi maalinimadii Khamiista dalkaasi gaaray. waxa uu la kulmi doonaa madax kala duwan oo ka socota dalalka Afrika oo kamid yahay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo sidoo kale madax kale ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halkaas kula kulmi maanta waxaa la rajaynayaa in la soo saaro go'aan ciidamada AUSOM ay ku sii joogi doonaan gudaha Soomaaliya, iyadoo markaasi xaaladda dalku ay tahay mid cakiran. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxay tilmaameen in xilligan doorasho ay markaasi fursad ay siin karto kooxda Al-Shabaab haddii ciidamada AUSOM ay isaga baxaan gudaha dalka. waxay markaasi tilmaameen in xilligan aan loo baahnayn in ciidamada AUSOM ay markaasi ka baxaan dalka. waxayna sidoo kale soo hadal qaadeen wararka markaasi ku aadan in ciidamada AUSOM ay si weyn uga dagaalamaan gudaha dalka iyadoo wato diyaaradaha dagaalka. ciidamadan waa ciidamo dalal kala duwan markaasi ka socda oo ka howlgala magaca AUSOM oo markaasi ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, iyagoo qaybo badan oo dalka markaasi ku sugan magaalooyin badan ay ku sugan yihiin oo markaasi gobolada dalka ugu waaweyn, waxayna markaasi ka qayb qaataan dagaalka ka dhana kooxda Al-Shabaab. muddooyinka u dambeeyay waxaa soo jiitamayay warar halahayn badan abuuray baraha bulshada kuwaas oo ku aadan in ciidamadan AUSOM haddii ka baxaan ciidamadeena xoogga dalka ma ku filan
filan yihiin dalka oo markaasi ma sugi karaan ammaanka dalka balse maanta ayaa la filayaa in markaasi wararkaasi lasoo gabagabeeyo iyadoo markaasi shir madaxeedka midowga Afrika oo markaasi ama maalmahanba ka socon doono magaalada Kampala ee caasimadda Uganda ama sidoo kale waa markaasi maalinimada berita lagu soo gabagabeyn doono magaalada Kampala ee caasimadda Uganda looga wada hadli doono ciidamadan oo markaasi mushaaraadka uu ka dhimay waa dalka Mareykanka oo si weyn uga qayb qaadanaya howlgalka Mareykanka ee markaasi midowga Afrika ayraad waa howlgalka AMISOM ee midowga Afrika ee markaasi ku sugan gudaha Soomaaliya dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadii aynu u soo noqono waa ciidamo cudud badan leh waxay lagu sugayn qaybaha markaasi kala duwan oo dalka waxay markaasi ka howlgalaan magaalooyin waaweyn waxay maalinnimadii shalay ahayd howlgal ay markaasi ka fuliyeen duleedka degmada Macaas waa taliska qaybta 27aad ciidamada xoogga dalka ay markaasi ay ku soo bandhigeen 6 xubnood oo ka tirsan kooxda al-Shabaab iyadoo markaasi gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Shabeellada Dhexe dhinaca maamulka Galmudug iyo sidoo kale Jubbaland waa markaasi gobolka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ay sidoo kale ka soconayaan howlgallo markaas lagu la dagaalamayo kooxda al-Shabaab ciidamada xoogga dalka haatan waxay wadaan dardar xoogan oo ay markaas kula jiraan sidii ay markaasi ula wareegi lahaayeen magaalooyin waaweyn oo markaas ay ku sugayeen kooxda al-Shabaab dhawaan ay ahayd markii wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hadlay oo tilmaamay in markaasi ciidamada dalka ay ku sugan yihiin ammaanka dalka isagoo tilmaamay in shisheeye loo baahneen dabcan wuxuu soo hadal qaaday howlgallo ka kala dhacay Shabeellada Hoose oo lagu dilay horjoogayaal sare oo ka tirsan kooxda al-Shabaab waxa uu tilmaamay in ciidamada xoogga dalka ay sidoo kale magaalooyin badan oo waaweyn oo markaasi ay ku sugayeen iyagoo markaasi ka qayb qaadanaya howlgal kala duwan oo dalka lagu sifeynayo tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda al-Shabaab waxa soconayay howlgallo kala duwan ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay markaasi ay ku bacsanayaan xubno ka tirsan kooxda al-Shabaab waxayna doonayaan inay dalka kaga saaraan qaybo markaasi ka tirsan dalka oo ay kaga sugan yihiin xubno ka tirsan kooxda al-Shabaab ciidamada sida gaarka u tababaran commandoska gorgor iyo sidoo kale kuwa kala duwan oo ciidamada xoogga ayaana markaasi ku sugan gobolada dalka waxaana la rajaynayaa in inta badan howlgalka AMISOM oo meesha ka bixi doono iyadoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay markaasi la wareegi doonaan ammaanka dalka waxayna markaasi gacanta ku dhigi doonaan fariisimaha ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo markaasi maanta looga wada hadlayo magaalada Kampala caasimadda Uganda shir madaxeedka midowga Afrika ee ciidamada howlgalka midowga Afrika magaca AMISOM ku dagaalama oo markaasi looga wada hadlayo sidii dalka looga saari lahaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa isagoo kulan gaar la qaadan doono madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Maxamed Maxamuud oo isagoo maalinnimadii markaasi Arbacada ahayd gaaray magaalada Kampala ee caasimadda Uganda kulan ayuu la qaatay saraakiisha markaasi taliyayaasha ka socda ciidamada midowga Afrika AMISOM waxa markaasi looga hadlayay xaaladda dalka iyadoo markaasi go'aan kama dambaysa la soo saari doono shir madaxeedka midowga Afrika markuu ku soo gabagaboobo magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaana halkaasi la filayaa in laga soo saaro in ciidamada AMISOM ay sii joogi doonaan dalka iyo inay isaga bixi doonaan waa markaasi gudaha Soomaaliya haddaba daawade haddii aad halkan la soo gartay aad baad u mahadsan tahay balse ciidamada Uganda markaas ay raadi ciidamada howlgalka midowga Afrika AMISOM haddii ay dalka ka baxaan su'aasha taagan ma tahay in ciidamadeena xoogga dalka ay markaasi ay sugi doonaan ammaanka dalka aragtida qaybta hoose faalada noogu reeb aad baad u mahadsan tahay